Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashana qiimaha badan meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa Hoggaan Media oo alaaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, dhacdooyinka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa maalinimo Arbaca ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 8 Abriil 2026. Haddaba qodobada tabinteena aan ku soo qaadan doono isla markaana aad ku daawan doontaan daqiiqadaha soo socda haddii Rabbi uu qadaro waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka ee Taiwan ayaa ballan qaaday dib u heshiisiin isagoo hadalkaasi ka jeediyay munaasabad xusuus ah oo loogu sameeyay aabihii aasaasay qaranka ee China. Haddaba hadalka hogaamiyaha waxaan idinkaga haynaa faahfaahinno iyo macluumaad dheeraad ah. Dhanka kale, wakiilka ugu sareeya wadahadallada umatala Iran ee lagu qabanayo Islamabad weli si rasmi ah looma xaqiijinin, balse faahfaahinno kooban ayaan idinkaga haynaa isla markaana aad ku daawan doontaan inta aan ku guda jirno tabinteena daqiiqadaha soo socda haddii Rabbi uu qadaro. Qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordho ayaa halkan ku qaada dhigi doonaa oo aan ku fiirin doonaa. Haddaba intaan u guda galin faahfaahinadaas, fadlan marka hore muuqaalka like noo saar haddii ay tahay markii kugu horeysay ee uu ku soo gaaro muuqaalkeena. Fadlan like noo saar oo nagu soo biir channelka, subscribe noo dheh, gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay wararka caalamka. Magacaygu waa Hashim Adam, ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Hagaag, hogaamiyaha mucaaradka ee Jin Li-won ee Taiwan ayaa ballan qaaday in ay ka shaqeyn doonto dib u heshiisiin lala sameeyo China, iyadoo ay sheegtay in ay ku dayan doonto ruuxa iyo aragtidii asaasihii xisbigeeda Sun Yat-sen. Hadalkan ayay ka jeedisay xilli ay ubax dhigtay qabriga Sun, iyadoo sidoo kale ammaan u jeedisay horumarka iyo guulaha dalkaasi gaaray kadib kacaankii shuuciga ah. Haddaba Jing oo ah hogaamiyaha xisbiga KMT oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn Taiwan ayaa booqasho ku joogta Shiinaha xilli xiisad militari ah oo sii kordhaysa ay ka jirto hareeraha Taiwan. Dowladda Beijing waxay Taiwan u aragtaa dhul ka mid ah dalkeeda, isla markaana baarlamaanka Taiwan oo mucaaradku ku badan yihiin ayaa hakiyay qorshe ay dowladda ku doonaysay in lagu kordhiyo qarashaadka difaaca qiyaastii $40 bilyan. Maalintii ugu horeysay booqashadeeda oo xambaarsan astaan siyaasadeed oo culus, Mrs. Jing waxay ubax dhigtay maqbaaradda Sun Yat-sen ee ku taala magaalada Nanjing ee bariga Shiinaha. Magaaladaasi ayaa horey u ahayd caasimadii dowladdii Jamhuuriyadda Shiinaha ee hogaamin jiray xisbiga KMT ka hor intii aysan u qaxin Taiwan sanadkii 1994 markii ay ku jabeen dagaalkii sokeeye ay la galeen Shuuciyiinta uu hogaaminayay Mao Zedong. Mrs. Jing waxay tiri, qiyamka asaasiga ah ee aragtidii Sun Yat-sen oo ahayd in dadka dunida siman yihiin mar walba waxay ku dhisnaayeen sinaanta, wadajirka iyo midnimada. Waxayna intaasi ku dartay waa in aynu si wadajir ah ugu shaqeynaa dib u heshiisiin iyo midnimo ka dhex dhalata labada dhinac ee marinka Taiwan si loo abuuro barwaaqo iyo nabad gobolka ka hanaqaada. Aasaasihii Jamhuuriyadda Shiinaha Sun Yat-sen oo afgambiyay boqortooyadii ugu dambeysay Shiinaha isla markaana aasaasay Republic of China sanadii 1912 ayaa u geeriyooday cudurka kansarka ah sanadkii 1925. Taiwan weli waxay si rasmi ah ugu tixgelisaa Sun Yat-sen in uu yahay aasaasihii Jamhuuriyadda Shiinaha. Dhanka kale, gudaha Shiinaha xisbiga Shuuciga ayaa sidoo kale u arka geesi qaran. Mao Zedong ayaa mar uu ku tilmaamay hormuudkii weynaa ee kacaanka. Jane waxay sheegtay in xisbiga KMT ugu dambeyntii uu hirgeliyay mabaadi'dii uu dejiyay Sun Yat-sen, taas oo Taiwan ka dhigtay bulsho xor ah oo dimuqraadi ah. Si kastaba ahaatee, waxay sidoo kale ku xustay
ama ay xustay xilligii loo yaqaanay argagixisada cadaanka ahayd waqti ay jasiiraddu ku jirtay xukun military oo socday 38 sano ilaa iyo laga gaaray ama laga qaaday 1987 waxayna tiri sidoo kale dhanka dhulweynaha Shiinaha waxaan aragnay horumar iyo kobac dhaqaale oo ka sareeya wixii dad badani ay filanayeen ama maskaxdooda ku sawiran karaan inkastoo Taiwan ay tahay dal dimuqraadi ah oo ay ka jiraan xisbiyo badan haddana xisbiga shuuciga ee Shiinaha ma ogola wax mucaarad ah oo ka hor yimaada taliskiisa ammaanka oo si adag loo adkeeyay amniga booqashadeeda ayaa si weyn loo adkeeyay arday 19 jir ah lagu magacaabo Yang Zihang oo la socday saaxiibkiisii si uu u arko kolonyada gaadiidka Jin ayaa yiri waxaan u arkaa arin aad muhiim u ah isdhaafsiga nabadeed ee u dhaxeeya labada dhinac ee marinka Taiwan dhanka kale Shiinaha ayaa diiday in uu la hadlo madaxweynaha Taiwan Lin Jinti isagoo ku tilmaamay gooni u goosad madaxweynaha ayaa isna sheegay in mustaqbalka Taiwan ay go'aamin karaan oo kaliya shacabka Taiwan labada dawladood midkoodna si rasmi ah uma aqoonsan tan kale ama kan kale Jan waxay sheegtay in safarkeeda uu yahay hawl nabadeed waxayna sidoo kale sheegtay in ay taageersan tahay kordhinta kharashaadka difaaca balse ay tahay in la isku dheelitiro wada hadal iyo difaac mas'uuliyiinta Taiwan oo ka digaya afayeenka xisbiga talada haya ee Democratic Progressive Party Wen Jian ayaa sheegay in hadalka xisbiga KMT dhab ahaantii doonayo xasilooni ka dhalata marinka Taiwan uu joojiyo caqabadii uu ku hayay kordhinta kharashaadka difaaca ee baarlamaanka wuxuu yiri nabaddu weligeed kama dhalan sadaqada ama naxariista kala taliyaasha waa in Taiwan iyadu ilaalisa awoodeeda dawladnimada uu hogaamiyo Lin Jinti ayaa sidoo kale sheegay ama sheegtay in Jin ay tahay in ay u sheegto mas'uuliyiinta Shiinaha oo uu ku jiro madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping haddii ay la kulanto in ay joojiyaan cadaadiska military ee joogtada ah ee lagu hayo jasiiradda isla markaana ay ixtiraamaan xaqa shacabka Taiwan ee u leeyihiin in iyagu ay go'aansadaan mustaqbalkooda haddaba agaasimaha guud ee hay'adda amniga qaranka Taiwan Tsai Ming-yen ayaa sheegay in inkastoo uu sanfaalo ka bixin karin waxa ay xisbiyada siyaasadeed haddii Shiinuhu adeegsado siyaasad isku dhafan oo karootada iyo uldilka ah wuxuu sheegay in Shiinuhu adeegsado cabsigelin military iyo cadaadis joogto ah si uu abuuro jawi muujinaya khatar dagaal oo sii kordhaysa iyo xasilooni darro ka jirta marinka Taiwan arintani waxa loogu talagalay in bulshada Taiwan ay dareento cadaadis nafsiyadeed iyo walwal ku saabsan suurtagalnimada dagaal ayuu Tsai yiri wuxuu intaasi ku daray tani waxay sidoo kale ujeedadeedu ay tahay in bulshada Taiwan gudaha loogu kala qaybiyo iyada oo kor loo qaadayo aragtiyaha taageera Shiinaha isla markaana ay sii adkayso dadaalada lagu horumarinayo heshiisyada hubka ee lala galo Mareykanka haddii aad halkan la soo gaartay waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkeena fadlan muuqaalka naga hilmaamin like-ta oo la wadaag asxaabtaada fikirkaagana noogu reeb qaybta hoose ee faallooyinka tan iyo inta aan tabin kale ku kulmin doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah